maanta mawduuceena waxaan kaga hadlaynaa jiirka ama dawliga cidba sidee u taqaano ninba wuxuu u yimid ibn Siriin rahimahullah markaasuu wuxuu ku yiri Sheekh Maxamedow waxaan ku riyooday anigoo u galmoonayo jiir se waxay dhashay timir ayaa dabadeeda ka soo baxday oo ay dabadu ay ka dhashay markaasuu Sheekh Maxamed ibn Siriin wuxuu ku yiri xaaska aad qabtid ma qof aad u xunba faasiqad miya markaasuu yiri nacam waa haysaa markaasuu wuxuu yiri waxay ku dhali doontaa oo ay ku dhalaysaa wiil saalix oo wanaagsan oo ahludiin ah jiirka ramsigiisa iyo macnihiisa waxaa lagu macneeyaa ee mufassiriinta riyooyinka fasiro ee ku macneeyaan in uu yahay imra'atun faasiqa haweeney faasiqad ah faasiq waxaa la yiraahdaa qofka marka uu taacada ilaahay uu ka baxo subhanahu wa ta'ala waa uu macno badan yahay waqiila waxa kale la yiraahdaa jiirka qofka ku arka gurigiisa dhixdiisa jiir badan arsaaqdiisa ayaa badanayso sababtu waxay ugu aaneynayaan oo ay leeyihiin jiirku ma joogsado oo ma istaago mana ku bato ilaa meel cuntadeedu iyo arsaaqdeedu ay badan tahay mooyaane qofka korriyooda ee riyo ku arka isaga oo gurigiisu ay ka sii baxayaan jiir ama jiirar arsaaqdiisa yaraanayso oo waxa weeyaan risqigiisa iyo khayrkiisa ayaa yaraanayo haddii jiirka aad ku riyootay uu yahay jiir fara badan oo isugu jiro alwaan abyad iyo aswad noocyo kuwa cadcad iyo kuwa madmadow waxay leeyihiin waa maalinta iyo habeenka oo qofka ku riyooda markaasi cimrigiisa ayaa dheeraanayo oo maalmo badan iyo habeeno badan ayuu sii noolaanayaa isku soo wada duuduub oo waxaynu ogaanay in jiirka oo lagu riyooda ay tahay haweeney faasiqad ah oo faasid ah waa haddii aanay kalaradoodu aanay kala duuduwaneen sidii aan soo sheegnay aanay ahayn kuwa cadaan ah iyo kuwa madow ah allahumma najina ya rab salaamu calaykum bahalkan ama xayawaankan aad arkaysaan magaciisa waxaa la yiraahdaa dibqolooc ma u maleynayo inuu jiro qof aanan garanaynin dibqoloocu waa wada taqaaniin haddaba muhiimadeena ma ahan dibqolooca ma taqaanaa mise ma taqaanid laakiin ujeedadeenu waxay tahay haddii lagu arko riyo ramsigeeda iyo macnaheeda muxuu noqonayaa ugu horeen dibqolooca wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka mamsuuqa ah ee la nasakhay ee la bedelay ayuu ka mid yahay markii aynu niraahno macnaha uu u taagan yahayne waa nin dirdiraale ah oo leynayo oo dilayo qaraabadiisa waxay leeyihiin culimadu afka carabiga waxaa lagu yiraahdaa dibqolooca aqrab haddii meesha caynka aynu hamza u bedelno iyo alif muxuu noqonayaa aqrab al-aqrab fal-aqrab midba midka kaaga sii dhow marka saas daraadeed waxay leeyihiin wuxuu tilmaamayaa cadow oo qaraabo kula ah adiga aad kuugu dhow haddii nin rag ah oo xaas qabo oo uu ku arko sarwaalkiisa gudihiisa oo uu ku arko dibqolooc ama sariirtiisa dusheeda uu ku arko dibqolooc naagtiisa naag xun waaye waa naag fasahaadsan waa naag faaxisho iyo zina iyo beleda daba wareegaysa waaye take care islaale marka ama cunista aad ku riyoonayso adiga oo cunaayo caqrabka ama dibqolooca macnaheedu waxaa waaye inaad cunayso maal xaaraan ah maalka aad cunaysaa wuxuu yahay maal xaaraan ah walaal islaale marka hal macno kalena waan idinkugu darayaa oo waxay ku macneeyaan culimada qaarkood oo ay yiraahdaan dibqoloocu sidiisuba waa maal ay leeyihiin waa maal haddii aad disho oo adiga uu dilaayo aad ku riyootidne waad faqrinaysaa oo maal wixii aad deysatay ayaa kaa tegaayo haddii uu ku qaniino uu qaniisho uu kula gaarane maalkaaga way kaa tegayaan dib damban kuguma soo laabanayaan assalaamu calaykum dameerkan ma idinkaga sheekeynayo magaciisana idin weydiin maayo waxaa la yiraahdaa dameer farow afka carabigana waxaa lagu yiraahdaa alximaarul wahshi waa dameer farow haddaba dameerkan isaga ah ka waran qofkii ku riyoodaa isaga oo hilibkiisa cunaayo ama caanihiisa cabayo sida aynu ogsoonahay dabcan hilibkiisu waa xalaale ogaada dameerkan aad arkaysaan hilibkiisu waa la qashan karaa waana la cuni karaa waana mid xalaal ah laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay haddii aan ku riyoodo isaga aniga oo hilibkiisa cunaayo caanihiisana cabayo maxay ii soo kordhinaysaa ramsiga iyo macnahana muxuu noqonayaa
gabar yahay haddii aad ku riyooto adiga oo hilib dameer farow cunaayo ama caanihiisa cabayo mabruuq calayk waa ku hambalyeenayaa waxaana kugu hambalyeenayaa inaad maal badan xoolo badan taajir hodan qadeeyo inaad noqonayso mabruuq oo guuriga ku leeyahay haddii aad meel fog aad ka aragto dameer farow riyada dhexdeeda laakiin aadan gaarin maal kaa tegi rabo iyo xoolo kaa tegi rabo aad soo ceshanaysaa maal kaa tegi rabo aad soo ceshanaysaa marka dameer farowga in lagu riyooda wax fiican waay dad badanaa waxay dhihi doonaan ilaahu caawray igu tus war waa idin salaamaya khayr badanaa idin rajaynaya bahalkan aan meesha idiin soo dhigay ciddii taqaano ciddii aan aqooninne commentiga loogu sheego aniga xitaa magaciisa ma aqaan af Soomaali laakiin afka Carabiga waxa lagu yiraahdaa wasaqa ama wasaqa ayaa lagu yiraahdaa waa bahal aad u xun oo malcuuna ah oo aan fiicneen oo aan wanaagsaneen waaye dilkeedana la faray oo la yiri hala dilo baashan iyada ah qofkii riyo ku arkaa wax fiican ma uusan arkin in riyo lagu arkaa wasaqa ama wasaqada هذا ما أهن بلع وجاد ضد بلع ديه دون ضد ما ملع ديه دون ملع ما هم بلعنا ما هم بهالكان هدي أد مجا عيسى أتقانو فضلا كومنتيجا نقوله وذاك بهالكان السجا هدي أدريه كو أركتو معناه هذا محاول معناه هذا وحاول إن أدريه ذا كو أركتي قف معتزل ضدك كير الدروستنا وكير بحثا يأمر بالمنكر وينهى بالمعروف ضدك وحمان تفرع وناجنا ضدك وكربا وهدي أدريه كو أركتو باشا صبر كذا ماشي عم كوسو صار وإنسان نمام دردراله أو هذا حد جدبو أو ومدك حد جدبو واي هدي أدريه ذا كو أركتو بهالكان isagoo oo ku cunayo adiga ku cunayo dad baa ku xamanayo dad baa ku hadalhayo waa lagu guranaya waa lagu jafaya waa lagu liqliqaya adiga dhan hilibkaaga cad loo goobsanaya way macnaha wasaqa macaanida kale ee uu leeyahayna waxa kamid ah inuu yahay cadow aan hadalka la gambanin waa uu hadalka banaanku keenay cadowtinimada ma la qarsado ma la dhunta cadowtinimada Allah naga haya Allah naga koriyo خير بدنا أدير جينا إن شاء الله شيخ رياضان يفسر فضلا توينكيغا فرود أو ديق إيو مال إي كالسعودان أيان كل رياضي محاواي رياضان وكد جوابا يا تفسير كيدا أو شرحن هل كان أيان ديقا يا لكن وحن أفيفانا يا إن آنا واتساب أما التليفون إن لا يقصوا إن آنا ريو كفسيرين عد الله عدي أباهن إن ريو الله فسرا فضلا براه بلشدة يعني كل يهي إنترنتك هل كاسد يجلس حليري كرتا نمبردا تليفوندا خاص كأه يانا الله يقصوعين يانا الله يصوغراعن يانا الله يجلس هادين واتسابك ما أقولان دونه ويديمو حاجة واتساب دي أنسو جسو رياضا تفسير كذا ديك إنه كداتو كركاغا أما ملح إنه كداتو كركاغا ما كلا ديرا أو معنوه وأو إسكودو يهين ديجو ومال حاران ديجو ومال حاران قفك مركا أو إسكو أركو إن شركيس أما جعميهيسو أي ديك الدقايان وحا أو كمل مايا مالكيس أيا وحا أو كمل مايان حاران أما دنبوين أيو كل عايا نمبا وحو يمد ابن المصيب مركا سوحو كيري وحان كل رياضي جعنتي ذا أو أي ديج أي كتف قيصو mar walbo aan is iraahdo kameer oo ka dhaqne way si badanayaan oo wixii maba dhaqmaayaan markaasoo ibn al-musayyib waxa uu ku yiri walaalow ilaahi ka cabso ilma aad dhashay ayaad dafiraysaa oo aad inkiraysaa sheego ilmahaasi inaad dhashay oo aad aabihiis aad tahay waxa ku soo haray malaxda waxa lagu sheegaa inay u taagan tahay hanti oo tanmu ziyaadayso kordhayso oo ninka markaasi shaqeeyo shaqadiisa hanti fara badan oo faa'iido ah ay kaga soo laabanayso qofka hadii uu riyo ku arko shirkiisa oo meel nabareysan ama meel kale oo malax ay ka imaanayso qofkaasi isaga ah been ayaa lagu tuhmi doonaa oo waa la beenin doonaa hadaladiisa intooda badan ama waxa lagu eedeyn doonaa been abuur ugu dambeyn malaxdu hadii ay ka soo qulqusho jirkaaga ama ay ka soo daadato waxay macnaha u taagnaanaya markaasi hanti sharci daro ah ina faantaa rajeynaya hadaba gabadhan su'aashan in soo weydiisay hubi
waxaan aad cunayso ee aad cabayso asalkooda meesha ay ka imaadeen xitaa haddii aadan adigu ogaal aadan u ahayn. Asalaamu calaykum.